ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يقصر دواء channel كسربيان ما أنتم waxaan idin qayb sanaaya alaabtan quruxda badan leh sidii aan u sameeyay iyo wixii aan ka sameeyay iyo waxaan aan had matqaana marka u dambaysa aan saan u marinayo waxay yihiin insha Allah. marka waa isla arkaynaa waxay ka kooban tahay iyo qaabka aan u sameeyay insha Allah. hadda waxaan soo diyaarsaday alaabtan aan soo diyaarsaday oo ka kooban waxaan ku haystaa cusbo yar iyo qamiir oo qamiirka qoyana haystaa qaada camal waaye diinaha yiraahdo qamiirka darayga daysto isticmaali kartaa 2 xabo oo kun ah 3 qaado oo shankar ah koob caano qandac ah 3 qaado oo batar ah baking powder carfiso ama vanilya saa taqaanid hadba carfiso ama vanilya hadaadan haysan hayla isticmaali kartaa burkii halka iigu jira oo 4 koob marka isticmaali doono waa inuu tusaa koobkan ku isticmaala hadii la yiraahdo. hadda waxaan soo qaatay baaquligan soo qaatay insha Allah kadib waxaan ku soo darsanayaa waxaan ku soo bilaabaa kood u horeysa khamiirkan saan soo jijibinaa khamiirka dhima lahan kanaan haysto inaa isticmaashid waxaa isticmaali kartaa leebitada qalalan hadii aad haysatid insha Allah kana haystaa markana isticmaalaa badanaa insha Allah. kadib waxaan ku soo darsanayaa koobka caanahan wax yar qandaciin insha Allah. kadib waxaan sameynaa wax yar inaan mataqaana aan isku soo jijibiyo ama isku soo walaaqo insha Allah. waxaan ku soo darayaa taan walaaqan ka hor 3 qaado oo sonkor ah 2 iyo 3 sonkorta isticmaalayo waa sonkorta brownka ah hadii aad haystid cad waa isticmaali kartaa marka tan brownka ah isticmaalaa aan maanta insha Allah. saana marka aan wax yar isugu qasaaya hadii la yiraahdo maadaama khamiirkaygu khamiir qoyan waxaan rabaa wax yar inaan isdhexgaliyo insha Allah. naasana ku wada insha Allah sonkor badan ma u baahni oo ay hadhowaan maarta macaan dambe iyo sonkor badan iyo matqaana waxyaabo badan u dhiman marka sonkorta hadii adiga aad matqaana rabtid inuu aadan matqaana sonkor badan waad ka badsan kartaa laakiin hadhow arki doontaan macaan kale waan hadhow matqaana waxyaabo badan u dhiman marka matqaana aan dhameeyo saasan 3 qaado kaliya u isticmaal insha Allah. hadda waxaan ku soo darsanayaa vanilya ku soo darsaday ama matqaana carfisadii kaamirada wax yar qarsooneen garanaya afwan. marka hadda waxaan ku soo daray 1 xabo oo kun ah habadii kale 2 xabo oo kun ah isticmaali ka badan waa isticmaali kartaa wax yar oo cusbo ana waa isticmaali insha Allah. carfisada hadaadan haysan aan ku daraayo vanilyada waxa isticmaali kartaa hal yar oo shiidan hadii aad haysatidna mid budada waa isticmaali kartaa mid bibiyaha isticmaali. hadda inta waa isku soo qasay wax yar kadib waxaan ku soo darsanaa insha Allah burka ama daqiiqda hadii Ilaahay yiraahdo koobkana isticmaalayaa koobka shaah lagu cabo amal waaye meel aadna u weyn aadna u yaro marka burka hal marna iskaga wada darin si hadhow hadii aad u baahatid aad matqaana aad ku sii darsatid. hadda waxaan maraa 2 koob ku shubaa insha Allah koobka saddexaad hadda ku soo shubana hadii la yiraahdo waa kaas 3 koob ku shubay intaana hadda isku qasaaya maxaa yeelay inta kale koobka kale waxaan u dhiganaa hadhowdii hadaa u baahdo inta matqaana cajiinka aad ka rabtid intuu ku istaagay. hadda waxaan ku darsaday qaadada afkeeda hore oo wax yar ah oo maxaa la dhahaa baking powder ah hadii aadan haysan waa iska dhaafi kartaa laakiin wax yar aan ku soo daray ani marka waa kana intaana hadda matqaana arwana si fiican isugu soo dhaxayso qaso ama soo xasho hadii Ilaahay yiraahdo. marka wali waxa aan ku darin waxay tahay batarkii ama subagii marka haddaan ku soo darsanaa insha Allah. waa kana 2 qaad aad waaweyn waaye qiyaas ahaan kadib intaana hadana si fiican aan isugu qasaa hadii la yiraahdo saana soo qasaa waa isku soo noqonaynaa inta matqaana aan si fiican soo xashaayo. marka hadda aragtid in wax yar ka jirixsan yahay buraa ku warsanaa 4 koob sameyn lahayd 4 koob sameyn burkii ku warsanaa matqaana aan ku darsanaysaa. hadda waxaan sameynayaa inaan ku soo darsado inta burkii dhinayd Ilaahay yiraahdo kadibna aan si fiican matqaana soo xasho markaan soo xasho isku soo noqonaynaa insha Allah. hadda waa kana hawayna u dhimo si fiican soo xashay
burkiina halkooda iidina waa ku darsaday. maasha allah tabaarakallah. waa inaa wadaan siino siyaadi. waxaa la dhahaa alaabtan waa alaab yaroo waqti badanna kaa qaadanaynin, rooti yaroo mataqaana cajiiba waa. hadda saanu diyaar iigu insha allah. saana waxaan rabaa mataqaana inaa u dhigo muddo adiga 35 ilaa 40 daqiiqo ah baan bacafka uga xiraaya oo meel dhigaa. adiga waxay ku xiran tahay burka isticmaalaysid iyo khamiirka isticmaalaysid sidoo active u yahay. marka waxaa la rabaa in mataqaana aad eegtida marka cajiinkaas intaa ku dhigtay in dabalkeeda uu soo noqdo. marka ma u baahan saliid inaan dusha ka mariyo waayo already batara iigu jira. hadda waxaan dusha uga shubayaa wax yar oo bur caadi ah, kadibna afka ayaan mataqaana bac uga xirayaa. bacdan soo qaadanaa wax yar. hadda bacdiyaan soo qaatay waan ku xiraa insha allah. afkan uga xiraa jaqadaadan bacdaan haysanin bac caadi isticmaali kartaa ama shay dabool leh waa daboolka saaraysaa. adiga cabaaraa ka maqnaanaysaa haddii la yiraahdo intuu xoogaa fiican kasoo qamiiraya. marka waa isku soo noqonaynaa intuu soo qamiiraya insha allah. halkaanaan dhigaa waana ka tegaya insha allah. isla socod wanaagsan. hadda waa kana wuu soo qamiiray aniga 35 daqiiqo kadib saanu iigu soo qamiiray. marka maasha allah. hadda wax yaraan waxaan ka bixinayaa aaryada. markii mataqaanaa burka aad digtid aaryaa gelaysa waayo wuu soo qamiiraa wuu soo fuura xoog kor ugu soo baxa kacaa. marka waxaa sameynaya wax yaraa aaryada laga bixiyaa. kadib waxaan isla arkaynaa sidii kaleeta ee mataqaana aan u diyaarin lahaa insha allah. miiskaana soo nadiifsaday ama meeshaan kadib bur yaraan kusoo bilbishtay oo kusoo shubtay. waxaan soo qaadanayaa burkii aan soo qaadanaa haaf ka mid ah aan soo qaadanayaa. markaan soo qaadanaya insha allah. miiskaaga hadduu weyn yahay ama aad mataqaanaa hal wax ka dhigaysidna hal maraaba kala bixin kartaa, laakiin ani waxaan rabaa 2 nooc inaan mataqaanaa aan ka dhigo. saasaa waxay keentay inaan haaf soo gasto. haafkaana marka hadda aan kala bixinaya insha allah. waa kana tartiibtaada. aadna uma jilicsana burkaan aadna uma adka si yaroo macaan weeye. marka saana la rabaa inuu kuu ahaado. waxaan ka sameynayana waxay tahay rooti qorfo dhexda laga gelinayo insha allah, ama cinnamon roll la dhahaa, ama rooti wareegsan oo qorfo dhexda laga gelinayo. hadba saa u taqaanid insha allah. tartiibtaada waqti adigoo haysto iska samayso insha allah. waa alaab yaroo macaan aad iyo aad khatar u ah. wixii macaan jecel aad iyo aad ay ugu fiican tahay insha allah. ayadoo bilaa macaanna waa sameyn doonaa insha allah. waa in tusaa dad macaanka rabina rootigoo bilaa macaanna waa in tusaa insha allah. waa kana hadda saana usoo kala bixiyey. waa isoo la ekeysiiyey. balciisuna aadna uma buurna aadna mataqaanaa uma khafiif saa'idana uma aha. meel dhexaad inaa ka dhigtaa la rabaa. hadda waxaan soo qaadanayaa batarkaana waxaan usoo wada marinayaa ka gees aan soo marinaa. si fiican uma wada aragtaan karaale ahaada kaamiraday mag wada gaarin laakiin aad u balaaran yahay. marka waa kana saana usoo wada marinaa. batarkaana haysto. haddii aadan haysanin waxaa isticmaali kartaa wadankeena joogto waxaad isticmaali kartaa subageena caadiga ahaan 2 qaado ka mid ah ayaad saa u wada marinaysaa ilaa 3 qaado intii mataqaanaa burkaaga uu la egyahay. waxaa la rabaa ka gees inaad si fiican hareeraha dhan meel walba uga marisid haddii ilaahay yiraahdo. marka saana u wada marinaya insha allah. waa kaasa saasa usoo wada marinaya. hadda waa dhameeyey. halkan waxaan kusoo qaatay sonkor 2 qaado camal ah oo baroonka ah. waxaan kusoo darsaday 1 qaado camal qorfo shiidan ah oo 1 qaado ah iyo 2 qaado oo sonkor isku soo qastay. 2 qaado waaweyn waaye. saana ugu bilbilaa marka ka gees intii aad subaga marisay oo dhan aad saa ugu bilbilaa haddii ilaahay yiraahdo. waa sonkor iyo qorfo waxaana haddii aad taqaanaa la socotid sonkor iyo qorfo shiidan waa insha allah. waa kaasa kulli waa kusoo wada bilbilay. khataraan ku dhahay maasha allah tabaarakallah. kadib waxaan sameynayaa inaan saan u duuba sida mataqaanaa aan u roll gareeyo insha allah. cinnamon roll la dhahaa ama saa u duuba rooti dhexda qorfo laga geliyo oo la duubayo waaye.
marka tartiib adoo waqti haysto insha Allah kadib gacantaada saan ku dhadhahe saara gacantaada kusoo dhadhahe dhag marka waa kana tartiib gacantaada taqaana saa ku dhama kala jiidaysid xoog laakiin wax yar baa maaragtay asaa jiidaysaa sidii afkii hoosena uu xirmo marka waa kana hadda waxaan sameynayaa soo diyaarsanayaa saxankii aan oven ku gelin lahaa ama foornada aan ku gelin lahaa ka saxanka waxaan soo marinayaa wax yar oo mataqaanaa saliid ama mataqaanaa waxaan rabtida marsan kartaa insha Allah kadib waxaan sameynayaa inaan mataqaanaa jarjaro hadii Ilaahay yiraahdo waa soo jarjaraa insha Allah markaan jarjaro oo kulli dhameeyana waa dhigayaa adiga 15 daqiiqo ilaa mataqaanaa 20 daqiiqo intuu mataqaanaa mar labaad inuu soo khamiiro aan u baahanahay marka waa kana qaabkaana u jarjartay saayidata intaan uga waaweynaysid waxaa laga yaabaa hadda inuu aad u waaweynaado maxaa yeelay mar labaad mataqaanaa khamiirinaysaa soo maaha marka intaan ka badan inaa ka waaweynaysid uma baahnada u malaynaa halkan hadda istiraahado way ka furanaysaa kale waxaa la sameeyaa biyo gacantaada la soo mariyaa saana la isugu dhajiyaa marka waa kaas ama kala foqos cajiin meesha noqonay hadana waa kana saan leedahay xabada isdhaw way kala foqaysaa biyo marinayaa dhago isku dhagaysaa sida quruxda badan ee hadhow nooga soo baxaysa insha Allah saana ku soo dhameeyay qaybtii hore ee macaanka aan ka dhigay saana ku soo dhameeyay waa dhigayaa insha Allah abaaraan dhigaa adiga insha Allah intii xooga intaan ay laaleegta ay soo waaweynanayso kadib waxaan soo kala baxsaday qayb kale qaybtaan marka waa isla sidii oona soo kala bixiyay isla sidii aan subagii ama batarkii u marinayaa just waxaan ka reebayaa sonkorta iyo qorfihii mataqaanaa aan ka hormariyay waan sonkortaan ka reebaa waxaan sameynayaa inaan mataqaanaa qorfo kaliya aan dhexda ka galiyo sida carabtii qorfahana ay u hesho laakiin macaankiina uu uga yaraado marka hadaa macaan badan jecleen oo kale saana ka dhiganaysaa qorfo bis ku bilbilay sonkor dhan ma u baahnid insha Allah kaas isku mid la waay laakiin sokortiyaan ka reebay qof marka mataqaanaa haduu sokor badan jecleen oo kale carafta qorfahaasna uu rabiyo saana ka dhigan kartaa waa kaas qaybtii kalena waa soo jarjaray sidii oo kaleeto qaybtaan waa qaybtii bilaa sonkorta ahayd ee dhexda sokor aan uga shubin just qorfaha lahayd hadii aad ka heshana waa sameysan kartaa sidaan marka waa kana hadda waa isoo qamiiray maasha Allah waa kana soo waaweynaaday intii markii hore u leekaa dhabalkeeda soo noqday hadda ovenka u dirayaa adiga 10 daqiiqo ilaa maxaa la dhahaa 15 daqiiqo ee ovenka igu jiraysaa kadib waxaan tusha ka marinaa hadii Ilaahay yiraahdo ukun iyo caano aan isku soo qasay insha Allah kulligood saana wada marinayaa ovenkiina waa soo shitay markaas kadib ovenka ayaan mataqaanaa adiga intii uu mataqaanaa gold brown oo qurux badan uu kaaga soo noqonayo intii mataqaanaa markaas adiga guduudka aad jeceshahay ovenada dadka isku mid maaha ayuu ku jiri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo ama foornooyinka isku mid maahan marka waa kana ukunta hadaadan haysanin caanaha kaliya ama aanacaysid urkeeda mataqaanaa dabka gasho dadka qaar mataqaanaa xoogaa dhifta laakiin ur badan ma lahan marka waxaad sameynaysaa caanaha khaliya marsan kartaa laakiin ukuntii caano waxay ka dhigaysaa qurux badan waa kana hadda qurux soo maaha maasha Allah tabaaraka Allah wadana siyaa aad iyo aad u macaan aadna u qurux badan yahay rootigan cinnamon roll la dhaho ama rootiga warwareegsan ee qorfaha dhexda laga geliyo saana mataqaanaa hadda saxankaana ku soo diyaarsanaya hadii Ilaahay yiraahdo qurux jileecna waa aad u bush u yahay wax adag ma ahan waa wax yar oo jilicsan oo xitaa ilmahana ay ka heli karaan hadii mataqaanaa ilmo siinaysid ama qof weyn siinaysid inna madiidaya laabtaan qof nacaay ma lahan qof weyn iyo qof yar aad u bush iyo si doolsho camal aadna u macaayahay marka maasha Allah tabaarakallah saan marka waxaan sameeyay waxaan soo mariyay caramel baan soo mariyay qofkii mataqaanaa jecel wuu masan karaa qofka kale sidiisa ay ku cunayaan ama u baahna wax kale in la mariyo waa kana caramelkan aan mataqaanaa mariyay adig guriga waa ku sameysan kartaa asagoo diyaar ah aniga maanta isticmaalaya wakaas diyaar waay kaasaan korkasa ugu soo mariyay marka waa kaas aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aan daawanayseen maanta cinnamon rollkaas idinla qaybsanayo walaalahayga qaaliga marka waa kaas saasaan ku soo dhameeyay
maasha allah. mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin daawashada aana daawanaysiin. Please haddii aan ugu cusub tahay oo janaalkeena ay tahay markii kuugu koobaad, hanaga ilaawin in aad tiraahdid subscribe-ka noo saartid, gambalaalkana aad furatid oo mar walba si waxaan soo gelin aa uga warqabtid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.